hambalyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo darajooyin guddoonsiiyey Generaal Farxaan Maxamuud Qaroole guul baan ku leenahay wiilka da'da yar ee dhalinyarada ah ee howlkarka ah abaalmarinka weynba waa u qalmaa waa ninka keliya ee la isku halay karo waa ninka keliya oo qabiil ka doortay qarannimadiisa waa ninka qarannimadiisa doortay waa ninka u shaqaynaya bulshada Soomaaliyeed waa ninka keliya ee yaqaan qabiil inuusan waxba tarin ee dumiyey dowladnimadeenii hore ee Soomaaliyeed ee xoogga lahayd waxaa dumiyey dowladnimadeenii ninka og weeye qabiil inuu yahay qabiil marka wax uu la joogo ma lahan Soomaaliyey waxaa ogaataan xasan sheekh maxamuud maalintuu lahaa Farxaan Qaroolow waxaa ku dhacaysaa dhiiqo wiilasha ciidamada khaasatan wiilka saakay saadaqa lagu bedela leeyir maxaa lagu sameeyay waryaa hooy Farxaanow dhiiqa lugaha lagu geliyo waa musqul god qodan oo wasakh ku jirta lugaha lagu geliyo ha gelin maandhow gacaliya ha gelin waa wiil yarata mustaqbalaad leedahay 30 sano 40 sano 50 sano hor la cimriga ka dhibna hadii Ilaahay ku siiyo ha gelin dhiiqada nimana ku jiro ka warrama akhyaaray waxa uu ku hadlayo ninka madaxweynaha isku sheegaya ee xasan sheekh maxamuud waxa uu ku hadlayo maxay inay la noqotay nin buu dhiiqa ku tuuray Saadiq Joon buu dhiiqa ku tuuray ninka la yiraahdo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha faara qabiilaystaha marka Farxaan Qaroolena in dowladnimadiisa yaqaan weeyo muwaadina inuu shaqaynayo dadkiisa iyo dalkiisa weeye maantayna waa ka shaqooyinkii uu shaqaystay uu helayo abaalmarinteedii waxaanu ku leenahay Farxaan guul baanu ku rajaynaynaa qabiilkaagii baa waxa ka dooratay qarannimo maasha Allah in dhalinyaro ah oo hadda aqoon leh baa tahay qabiil inuusan waxba ahayn og baa tahay shaqadaadana allaha kugu guuleeyo kor u socod baanu ku leenahay waxaanu ku rajaynaynaa insha Allah waqtiyada soo socda inaad dalka adigu hogaamisid baanu ku rajaynaynaa waayo nin aad iyo aad u wanaagsan baa tahay nin dhalinyaro baa tahay Ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inuu kuu fududeeyo shaqooyinkaaga aad iyo aad baanu inii salaamayna ummadda Soomaaliyeed meel kasta ku nool